kulan wanaagsan fiidnimo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabin kale iyo wararkii ugu waaweynaa xiisada bariga dhexe iyo weliba iskorimaadyada dagaalada u dhexeeya Iran iyo weliba Israel. maxaad kala socotaa faahfaahino maxaase laga helayaa weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha Iran iyo jawaabihii Iran ay ka bixisay oo ku duqeysay Israel. sidoo kale faahfaahino dheeraada oo laga helayo weerarkii Mareykanka uu ku qaaday habeenkii xalay toole ahaa goobihii nuclear-ka ee dowladda Iran iyo weliba khabiir dhanka Mareykanka caanka isla markaana aad loo garanayo dhanka nuclear-ka khabiir ku ah oo soo hadlay faahfaahinana ka bixiyay warar kale oo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyay iyo Iran waqtiga si rasmi ah uga jawaabi doonto weerarkii lagu qaaday ayaan sidoo kale ku hayaa qodobada kale ee tabinteena markaad kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah Washington oo miiska wada hadalka sheegtay inay diyaar u tahay isla markaana la fariisan doonto oo ay doonayaan in ay markaa gebi ahaanba ku qanciyaan Iran in aysan wax jawaab bixin haddii ay ka jawaabaanna natiijo aan la mahdin ay ka heli doonaan. fadlan halkani waa caalamka TV channelka subscribe saaro si share gare meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada aanu ku bilownay wararka ka imanaya Israel ayaa waxay ku waramayaan weli inay soconayaan duqeymaha iyo beegsiga goobaha istaraatiijiga ee ku yaala Israel isla markaana ay ku hoobanayaan gantaalada iyo weliba sawaariikhaha ka imanaya Iran. marka la eego xaruntii xeer ilaalinta iyo goobo kale oo muhiim ah ayaa la sheegay inay ku dhaceen gantaalo iyadoona la tilmaamayo telefishinka 15aad ee Israel inuu baahiyay ismooyin muhiim u ah xukuumadda in markaasi ay ku dhaceen maanta dhowr gantaal iyadoona tafaasiil iyo faahfaahin rasmi ah aan laga bixin. Israel ayaa diiday inay warbaahinta u bandhigto goobaha dowladda iyo weliba kuwa ciidamada ee Iran ay beegsatay laakiin mar walba waxay warbaahintu u soo bandhigtaa goobaha u dhow ama markaa goobaha guud sida markaasi isbitaalada ama suuqyada ama goobaha public ah ee bulshada markaasi wada taqaano laakiin goobaha kale waa ay u diiday iclaamka sida markaa lagu eedeynayo. wararkii ugu dambeeyay waxay sidoo kale tilmaamayaan in Iran aysan diyaar u ahayn inay joojiso dagaalka isla markaana iyadoo ay tahay dhibane oo ay doonayso waqti xaadirkan in jawaab degdeg ay bixiso. website-ka walla ee marka Israel laga leeyahay ayaa waxa uu ku waramayaa in markii horeba Israel iyadu ay toddobaadkan duqeymaha u waday sidii ay ugu diyaarin lahayd jawiga isla markaana ay u burburin lahayd nidaamyadii difaaca ee Iran ay lahayd. waxa uu sidoo kale ku waramay 48 saac la soo dhaafay si baan in uu duqeeyay marka la eego diyaaradaha dagaalka Israailiyiintuna ay u duqeeyeen nidaamyadii difaaca ee Iran taasoo keentay in markaasi Mareykanka iyo weliba diyaaradaha kale ee fuliyo howlgalkii ugu dambeeyay inay u gacan banaanaadaan isla markaana ay si baan u duqeeyaan goobihii hubka wax gumaada nuclear-ka amaba lagu bacriminayay uranium-ta. wararka waxay sidoo kale intaa ku darayaan in dowladda ama nidaamka Israailiyiintu inay diyaar u yihiin markan in ay markaa dagaalka joojiyaan haddii Iran ay joojiso sida markaasi iyagu ay ku waramayaan. jaradda iyo diicooda xaranood waxay sheegtay in Israel diyaar ay u tahay inay joojiso dagaalka haddii Khamenei isagu soo baxo isla markaana si cad u sheego in dagaalada ay joojin doonaan. laakiin jawaabtaasi waa loo arkay waxay ahayd adigu aan ku dilo oo anigu ima dili kartid ayaa waxa gebi ahaanba ka biyo diiday dowladda Iran. waxay sheegtay iyadu inaysan diyaar u ahayn in markaasi ay u hoggaansamaan handadaada iyo weliba markaasi fakarka Netanyahu iyo Trump. geesta kale waxaa sii kordhaya dadka ka barakacaya gudaha Israel isla markaana raba in dibadda ay u baxaan 25,000 oo dalab ayaa la sheegay diyaaradaha Israailiyiintu ama hay-adda loo yaqaano caal ee ah diyaaradaha Israailiyiintu in markaasi ay dalbanayaan markaa dadkaasi 25,000 inay ka baxaan gudaha Israel taasoo culays ku ah wixii markaasi iyagu loo yaqaanay hijreynta ama markaasi in dhul cusub oo la degayo laga helayo dhulka laga haysto Falastiin loola jeeday. su'aalaha kale ka imanaya waxay tahay saameynta ka dhalan karaysa xuutiyiinta iyo weliba hanjabaadoodii ka soo baxday. afayeen u hadlay kooxdaasi oo lagu magacaabo Yaxya Sariic ayaa bartiisa rasmiga ee militariga Yemen soo dhigay hadal ahaa Yemen waxay si official u gashay dagaalka sidaas daraadeed maraakiibtiino ka fogeeya
biyaheena ama dhulka biyaheena. Hadalkan ayaa loo fahmay inay beegsan doonaan maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa Mareykanka iyo weliba cid kasta oo maraysa badda cas ama biyaha badda cas, taasoo halis weyn ku noqon karaysa marka la eego. Waxaana jira cabsi weyn oo jirta oo ku aadan in waqti xaadirkan Iiraan ay qorsheynayso in gebi ahaanba ay xirto biyaha iyo badda Hormuz. Baddan oo u dhaxaysa Cumaan iyo weliba Iiraan ayaa lagu soo waramayaa in suuragal ay tahay waqti xaadirkan in la maqlo mar qura in albaabada in markaa la isugu dhufto oo gebi ahaanba aysan jirin wax maraakiib oo halkaa mari kara. Tallaabadan ayaa Mareykanka gaar ahaan madaxdooda ugu sarreysa waxay ugu hanjabeen dowladda Iiraan in natiijo aan la mahadin ay ka dhalan doonto haddii ay isku daydo in tallaabadaasi ay qaado. Laakiin haddana wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan dowladda Iiraan in iyadu ay diyaar u tahay inay ka jawaabto weerarkaasi. New York Times ayaa waxay sheegtay 12 qumbuladood oo waaweyn in markaa lagu dhuftay goobahaasi Fordo, laakiin haddana waxay tilmaamayaan in gebi ahaanba 100% aysan wada burburin. waxaa markaasi sawirro hordhaca oo lasoo qaaday laga arkayay in burbur xoogan uu ka muuqdo ama ugu yaraan la arkaya doldoleelo iyadu inay leedahay. sawiradii ugu horreeyay ee satellite-ka laga arkayna waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare, laakiin aan la garanaynin khasaaraha dhabta ah in gebi ahaanba goobtaasi ay noqotay mid aan lagu shaqayn karin ama mid waqti markaasi u baahan si dib u habeyn loogu sameeyo. NBC ee Mareykanka laga leeyahayna waxa uu ku waramayaa Mareykanka waqti xaadirkan in si weyn uga walwalsan yahay jawaabta culus ay bixin doonaan dowladda Iiraan. 48 saac ee soo aadan waxaa la sheegayaa in walwal xoogan markaasi haatan Mareykanka iyo xulafadoodu ay ka qabaan jawaabta rasmiga ah ee la bixin doono. jawaabtan ayaan la garanaynin waxay noqon doonto iyo siday uga jawaabi doonto. Wall Street Journal waxay xiganaysaa mas-uuliyiin Mareykan ah waxaana ay ku waramayaan Washington inay Tehran u sheegtay in markaasi lala beegsaday weerarka nukliyeerka goobaha Iiraan mar qura isla markaana uusan ahayn dagaal joogto ah. laakiin tallaabadaasi ayaa waxay tahay gacmaha isa saaro oo aan ku dilo, taasoo dowladda Iiraan gebi ahaanba ay diideen. afhayeen u hadlay howlgalka loo yaqaano Wacdu Saadiq ayaa waxay ku warameen in uu ku waramay kaasoo lagu magacaabo Imaan. waxa uu sheegay Imaan Tajik in gabadfalka markaa dowladda Mareykanka uu noqon doono mid markaasi gebi ahaanba aysan mahadin, naftooduna ay difaaci doonaan. waxay tilmaameen inay qiimeyn doonaan waxa dhacay, la diyaarin doono howlgal xoogan oo laga jawaabayana dhowaan u dhici doono. telefishinka 12aad ee Israa'iil ayaa waxa uu ku waramayaa in toddobaadkan khasaarihii gaaray Israa'iil lagu sheegay 12 bilyan, waxaana la tilmaamayaa in goobo kala duwan oo la duqeeyay in khasaaro badan uu gaaray. sidoo kale nidaamyadii difaaca ayaa la sheegay in gebi ahaanba burbur ay joogaan, xaaladuna aysan ku qurux badnayn. ila wareedyo la helayo waxay ku waramayaan ilaalada kacaanka in ay hadda diyaar u yihiin inay ka jawaabaan waqti xaadirkan marka la eego weeraradii loo geystay iyo weliba Israa'iil qaabkii ay u duqeeyeen. waddankaasi Suuriyana waxaa ka dhacay qarax xoogan kadib markii la burburiyey kaniisad markaasi dad masiixiyiina iyagu ay ku sugnaayeen. weerarkaas ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid argagixiso, isla markaana dowladda Suuriya ayaa cambaaraysay iyo weliba gebi ahaanba wadamada dariska la ah. ururka Xisbullah iyo weliba markaasi oo dowladda mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Suuriya xubno kale ayaa si ba'an u dhaleeceeyay falkaas oo ay ku sheegeen inuu yahay mid argagixiso oo aan suuragal ahayn in markaasi la geysto.